كاسيات عاريات. waxaad xusuusan kartaan maalmahan social media wixii dhex yaalay habar wasiirada oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo maxfal meel dhan oo la marayo oo public ah maradii gogosha lagu seexanay sarwaalkii raggu ay gogosha ku seexanayeen hatta ma sarwaalkii banaanka loogu baxay waa sarwaalkii sariirta ay la taagan tahay isku sawiraysaa markaasay social media soo dhigaysaa hatta inda adayga iyo xishood darrida iyo sirriig la'aantu waxay gaadhay heerkaasay gaadhay hatta dumar caadiya ma waa isla 60 jir ka weyn maxaa ku haray oo da'danaad isu qaawin oo maxaad raadinaysaa risaalada ay diraysiyo fariinta ay diraysa habartaasi ma taqaanaadiga waa fariin risaalay xambaarsan tahay ma aha bilaash ma aha risaalay xambaarsan tahay barnaamij waaye waxyar ka horna mid kale waa tii iyaduna lahayd xeerkii jinsiga iyo kufsiga wadaadaan noo diiday oo ka hor yimid si ay toosh ugu ifiso wadaadaan waxaan diidan yaa diiday ummadii muslimka diiday baarlamaankii baa diiday wadaad cid aan ahayn baa diiday wax urayaad meesha keenteen oo laga yaqiiqsado oo qashin ah rag waa isguursado dumarkuna hay isguursadeen ninkuna xaaskiisa hadduu u tago waa zino hadduu kufsi baa la yidhaahdaa hadday labadan taata caadi isu ogolaadaan zina maaha xor weeye way isfulfuuli karaan khiyaaray saaka waxaan leeyahay barnaamij ku saabsan Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo shalay jamcihi si adag ooga hadlay maama Khadija Diiriye oo uu ku sheegay in ay iyadoo dharkii sariirta ay ku labisatay arintaana diintu aysan ogolayn ayaan ka hadlaynaa waxa kale oo aan ka hadlaynaa Farxiye Cabsiye oo iyadana hadda ka hor dhahday ninka naagtiisa hadii uu xoog wax kaga qaato waa kufsi iyo ereyo kale oo xunxun badan oo dumarka Soomaaliyeed laga soo warinhayo oo ku saabsan arrimo aan maxquul ahayn oo xagga diinta fadeexa ku ah waxay la joogaysaa isha ku hayay oo fafaahin doona saaxiibkii Cabdi soo dhow Sheekh Umal wuxuu ku fakaday oo aad iyo aad dhulka oo la galay maama Khadijo horta maada waa maasan tahay Khadijo Diiriye waxay soo bandhigtay iyadoo albarka cad taagan oo surwaal macnaha gashan waliba surwaal aad macnaha u qafiif ah oo sidoo sheekha oo sheegay dharka qafiifka oo ragga ay ku seexdaan ah dharka bijaamaha loo yaqaan ama sariiraha lagu seexdo marka wuxuu dharkaasi wadatay marka banaanka ayay soo dhigtay ceebteedii ishaag maxaa la dhahaa surwaal maanta in dumar ay ku labistaan waliba aad wax u xun waaye wax dhaqan xumo ah waaye marka wuxuu dhahay waxay ximbaarsan tahay waxyaabo kale oo macnaha fariimo kale diraysa oo leeyahay dad kale u adeegaysa iyo qurba joog iyo dad kale dibadaha iyo gaalo iyo waxaas uu adeeg oo ka wadaa marka xaaladaas waa lagu eedeeyay Khadija Diiriye qof mar walbana dharka iyo waxa qiimeeyna ma aha inay isqaawiso lagu eedeeyaa wasiir Khadijo marka Sheekh Umal aad u dhaliilay wuxuu dhahaa barta waa 60 jir wax u harayna ma lahan marka wuxuu yiri sababta isku qaawinayso iyadoo 60 jir ah ma garan karo marka dadka qaar waxay Sheekh Umal ay ku eedeeyeen waxay ku dhaheen saasi ka duwan ayuu dhihi karay marka canaan waay Sheekh Umal wixiisa waa nin wadaada waxba canaanaya laakiin dadka qaar waxay commentiga ku qorayaan inuu xoogaa sidan si ka duwan oo nasteex maadaama ay diintu tahay sidan si ka duwan inuu wax ugu sheegi lahaa marka habarta sadda wax sheeg way beeshay waa qof 60 jir ah wax sheegna way dhaaftay waa qof kas isku qaawinayso oo careless ah marka maado waxa isha qaabkeeda iyo dhaqankeeda wax aad u qaab daran Cabdi waxaan dhihi karnaa gabadhu hadii ay yar tahay oo inan yar ay tahay ama gabadh yar oo adu da' yar ilaahu garoob iyo gashanti waxay noqotaba inan oo da' yar hadii marba ay tahay waxaan dhihi karnaa rag bay ku soo jiidanaysaa say isha ay bilcdeeda ama quruxdeeda uu jidhku isha u qabtaa raguna ay ku raacaan saas daraadeed bay isla qaawinaysaa oo ay u sameynaysaa caariyad waxa kale oo la dhihi karaa waa gabadh yar oo inan laakiin naag weyn oo duq oo habar ah waliba ilaa maxaan ku dhahaa dhowr iyo 10 sano wasiir iyo xildhibaan inta uu ku dhex jirtay dawladda ku dhex jirtay sababta hadda ay qaawinayso nin ma daydaysa sababta ay isku qaawinayso horta way mid uu sheekhu uu ka hadlayo oo la xumaaday
ee u arka naagta weyn oo duqda isqaawinaysa midda kale qofku waa qof muslim diinta muslimkuna ku dhashay ayuu sheeganhayaa ilaahay diintiisana waxaa la dhahay gabdhaha mu'minaadka ha is asturaan oo jidhkooda ha qariyaan waxa ninkooda ka ahayn aan jidhkooda ayn u banin aysan tusin baa la dhahay sababta iyadoo duqo intaa leeg iyadoo nin iska gaday maysa isku qawisi cabdi maxaad u malayn kartaa والله horta mahada waa la yaab hadda wadaadka hadalkiisa sida uu dhacayo waa inay fariin dirayso waa inay wadamo shisheeye u adeegayso ayuu ka wadaa marka waxbay ximbaarsantahay leeyahay marka waxay ximbaarsan tahay dhaqamo gaalo ayay sidaa u leeyahay marka haddii qofka marka dadka maqaarka isheeg iyo korka dadka Soomaali waa laga wada yahay laakiin qulubtooda lama oga dad baa waxaa jira isheeg islaamnimada aan ku dhaganayn aan ku adadkeen in qofka islaamnimadiisa iyo diinta ku adadkeen dumar fara badan oo isqaawi way jiraan oo baraha bulshada soo gala oo mar walba caaytamo oo waxyaabo qaldan oo kuwa diinta ka baxay iyo waxyaabo badan waa la arkaa laakiin waa dumar dhalinyaro ah maaha dumar waaweyn oo duqooshin ah maaha marka Khadija Diiri waxa lagu eedeynaa iyadoo qof wasiir ah oo laga rabo fariin wanaagsan inay dirto laga rabay inay sumcadda iyo sharafta qof dumar ay leedahay Soomaaliyeed inay ilaaliso laga rabay wasiirnimada iyo xilka ay ku fadhiso inay qiimeyso laga rabay dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed inay ixtiraam u muujiso in maanta surwaal intay soo qaadatay ee magaalada dhexdeeda la marto xataa waliba waxa la leeyahay Istanbul iyo meelo kale ku tagtaa leeyahay surwaalka wadato wax dan ay ka leedahay malahan marka Khadija Diiri way arintaas way ka fakatay haday raali gelin ka bixi lahayd haday Sheekh Umal u jawaab inta u celiso ay dhihi lahayd Sheekh Umal way ka qaldan tahay iyo ayada u taala laakiin fariin sax ah oo meel looga gambada lahayn loo diray wixii ku dhaqantan waa qalad maado cabdi Sheekh Umal wuxuu sheegay in dumarka Soomaaliyeed markii ay da gaadhaan ama meelaha qurbaha ee gaaladu ku badan tahay ay tagaan in ay diinta ay ku aflagaadoodaan ama ay isqaawiyaan qofka wax u sheegaa la hadla oo dhahaa sidan diinta muslimka ma ogoleen ma ka daysidna meesha Soomaaliya Afrika ma hol isku gumaysan jiray erayadaas ka imaada dumarka Soomaaliyeed iyadoo aan ognahay maama milyuun inay isqaawin jirtay kuwa kale badan hadda ay isqaawiyaan kuwa aad ogtahay maxaa khasbay inay dumarka Soomaaliyeed si oo yar qaab daran sidoo sheekhu sheegay way diinta ay ugu dhaqmaan والله horta mahado waa la yaab qof markuu qof weyn oo da yahay markuu xishoon waayo waa ceeb ani ma milyuun had kor waxaan ku soo magaalada Nairobi ayaan ku arkay ayadoo meel dukaan ah ku jirto oo dhar boorso ku guranaysan u imaday way asturneed sida qof caadi ah ay dharkeed u wadatay wax qaawanaana may lahayn markay qurbaha ay meelahaas tagtay isqaawisaa mogi qurbaha fog laakiin Afrika markay joogto waa caadi ayadoo garbasaarkeed iyo wixii dharkiisa u labisnaa umaleys xataa ma milyuun inay taada aqoonsanin aan indhahayga saaraan ugu gala dukaanka marka qofka hadduu mar da intuu noqdo isqaawiyo waa dhaqan xumo waa fool xumo qaatumada qofkaas qaatumada seegaal dhigi jira qofka markuu qaatumada seegayo asagoo 50 sano 60 sano jiro haddii uu isqaawid iyo caay iyo aflagaada la soo baxo qofkaas qaatumada seegay Soomaalida dhigi jireen marka qaatumada Ilaahay nama seejiyo waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed ha xishoodaan gabdhaha yaryarka oo meelaha isku qaawiyo oo TikTok-yada iyo wax soo galo waa sheegan dumar yaryar ayagana Ilaahay ha soo hanuuniyo da'dii 20 iyo 30 ka hor ay ku jiraan laakiin waxa la leeyahay waa la yaab dumar oo dhan ba waxaan u farayaa inay iska joojiyaan waxyaabahaas dhaqan xumada ah Ilaahay in laga baqo qurbaha daa joogto Ilaahay ku ogyahay hadda Afrika joogto Ilaahay ku ogyahay hadda Muqdisho iyo Soomaaliya joogtana Ilaahay kula socda marka Ilaahayna ka cabsada yaryar iyo waaweyn waxa tiimba hal ilaaliyo diinta Islaamka wixii ayna fartayna ay isheegaan hala sameeyo wixii ay diinta ka xaraantinimaysan halaga leexdo qofka jannada wuxuu ku galayaa Ilaahay inuu ku xirnaado wixii Ilaahay u baneeyay oo sameeyo wixii Ilaahay xaraantinimayna ka leexdo intaas ayaa jannada ka xigto haddii aan inta sameey weysana ahlu naar ayaa ta cabdi farxiyo xabsiya islaan la dhaho oo iyaduna hadda goor waxaa jirtay buuqi jirtay oo dhihi jirtay ninka naagtiisa haddii uu damco gogasha uu ku damco ay ku adkayso ninku laakiinse uu naagtiisa uu xoog wax kaga qaato waa kufsi cabdi arintaas qof Ilaahay u baneeyay xaaskiisa xalaal ooga dhigay si sharci oo diin ku qaba hadiiba ay ku adkayso ama ay sharcigeeda ay ku adkayso ay diido ku adkayso ay dambi ku sugan tahay diinta ay leedahay waa kufsi xagee ka keenta والله ما هذا وحكي جرى ملهن waxay banaanaysaa hadda wadamada Yurub oo kale dumarka waxa lagu leeyahay ninka ragga waa lagu adkeeyaa hadda dhalinyaro far badan oo Yurub ka timiday aan aragnay marka waxay ku leeyihiin anaga bishiiba hal mar aan dumarkeen aragnaa maxaa ku qasbay dumarku waxay leeyihiin ma wana la hadlayanba irida ka xirnaysa juuq ma u dhihi kartid hadda la hadashana dacwo iyo kiisa ku yaalo oo dawladda lagu dacweynaa marka waa babaryato meesha Allah bishiiba hal mar marka dhaqamadaas soo aragtay in dumarkii ay meesha ku xoogan yihiin ragga aysan awood lahayn
diinta islaamka aan la ixtiraameyn ayay soo aragtay. marka waxay u leedahay ninka hadduu naagta xoog waa kufsi, waxay u leedahay waa saas. marka waxay rabtaa hadhow markii qurbaha la joogo inay ka dhaadhiciso dumarka Soomaaliyeed haddii lacala ninka intay naagta isku adkayso ninka xoog waxa uga qaato inay hadhow dhahdo kufsi waaye, marka maxkamad la geeyo ninkii marsaas lagu dacweeyo. marka waxyaabahaas waa waxyaabo qaldan. diinta islaamka laga xishoodo in qof walbana wixii maanta uu geysto beri ayadoo xisaab ay ka horeysa. ilaahay waxa waye xisaab sax ah ayuu sameeyaa. qofka wanaag sameeyana wanaagiisa ayuu micnaha soo hordhigaa, qofka xumaan sameeyana xumaantiisa aakhira soo hordhigaa. marka dumarka Soomaaliyeed yar iyo weyn waxaa tihiin ilaahayna ka baqa, wadada tooskaana ilaahay nagu toosiyo anaga dhan. wixii dambi diinta islaamka galan waa la sheegaa, waana la caynaa, wixii la rabaan la dhahaa. marka Khadiijo Diiriye iyo naagtaas Farxiyo Cabsiye iyo ummada kale oo Soomaaliyeed oo qaldan oo dhan waxay yihiinba ilaahay ka baqaano, diinta islaamkana hal la saxo, ha laga daayo qalooca diinta. diintu qalooc maaha, waa diintu way toosan tahay. qofkii jidkaas toosan ka leexdan wadada tareenka oo islaamka oo ka dhacay wadada gaalada ay u dhacay. marka ilaahay waxaan leenahay qaatumada nagu dilo mahado. qodobkeena ugu dambeeya cabdi waxaan rabaa inaan ku gabagabayno. lama arkahayo baraha bulshada intaad aad gasho nin qaawan oo muluqa oo dabadiisu bannaan tahay ama isqaawanaya ma arkaysid. gabdhaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ee diinta iyo kitaabka ilaahay ku dhashay, sababta ay iyagoo xitaa diinti garanaya intay isku qaawinayaan quraanka akhrinaya aad arkayso muluq ay u yihiin oo dharka dhan sida kuwan qaawan oo kale ay iskaga dhigeen isku qaawiyeen, sababta arrintaa ku kaliftay maxay tahay cabdi? والله horta waa wax la yaab leh. horta inta badan horta qurbaha ka dhacda Soomaaliya gudaheeda markii la joogo dadku way asturan yihiin. dadka markay qurbaha tagaan waxay arkaan dad oo free ah oo aan xisaab lahayn oo aan la dabagelayn oo ishaga cunuga markuu qaan gaaro cidiisa uu ka guuraa 18 jir markuu noqdo wuxuu iska dagayaa meel kale xashiish iyo bakti iyo tumasho iyo qashin oo gala. marka nin cadaan ama madow ah oo qurba ah ku aragtay oo dhaqan xun wado hadaa raacdo maanta oo gabadhaada iyo wiilashaada ay iska raacaan waa wareer. marka hadda wadamada Afrika aan joogno lagama helo ragga qaawan, lagama helo ragga suudad ay wataan labis fiican wataan, laakiin dumarka cajirada iyo ka koro dharka u jooga. marka mar wal meel walba tagto Yurub iyo America tag adiga dumarku nigisi yar yar ay ku socdaan iyo kastuumaan yar yar ah, ragguna suudad ay wataan. marka waxaan waa qarsamaanki waxyaabo qaldan ayaa jiro dunidan ka jiro. ilaahay ha nooga badbaadiyo shacabkeena Soomaaliyeed. inta qalad ku sugan ha ka soo laabtaano mahado. dhibkaas faraha badan ayaa dunida ka jiro. ilaahay waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed ilaahay ha u laabtaano. dhaqan xumada iyo waxyaabaha caayada iyo aflagaadada iyo muuqaalka xun ha la iska daayo. kuwaas waxaan qodobada wararkeena ugu dambeeyay oon ku falanqeynaynay ama aan kaga hadlaynay Sheekh Umal oo Maama Khadiijo oo sarwaal soo xidhatay iyo dumar badan oo Soomaaliyeed oo anagu aan aragnay oo dharka aad khafiif iska dhigay ama isqawiyo qurbaha jooga. yaan kaga falanqeynay oo kaga hadlaynay. waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed dharkooda ha xidhaan hana is asturan, saas ayay cirdoodii sharafkoodii diintooda ku jirtaa. khayrta hawada nagala socotay meel kasta joogtaan, saas iyo nabadgelyo.